waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa email kastoo joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqa raadis waynu daaha kaga rogi doono qodobo ay ka midka yihiin huwantii iyo kooxii argagixisada oo warwar weyn ka qaba heshiiska iskaashiga military ee ay kala saxiixdeen Itoobiya iyo Somaliland iyo taliyaha ciidanka qaranka Somaliland sareeye gaas muxtaani oo si maqaam sareysa uu u soo dhaweeyay taliyaha ciidanka Itoobiya Field Marshal Berhanu Jula qodobada lagu heshiiyay oo ay ka mid tahay in si wada jira loo sifeeyo kooxaha shabaabka iyo Daesh iyo Ictisaam saldhigyada ka dhigtay Sool iyo Buhoodle dhinaca kale Xirsi Xaaji gudoomiyaha wadani oo sheegay inuu warwar weyn ka qabo heshiiska Itoobiya iyo Somaliland sidoo kalena yiri madaxweyne Muuse inuu Xasan Sheekh ka fasax qaato ayay ahayd oo uu sheego inuu Itoobiya heshiis la gelayo iyo dhinaca kale waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ninkii farmaajo oo ku calaacalaya heshiiskii aan abi la galay waxaan doonayay in Somaliland la caburiyo oo dhan walba laga xidho si ay midow u ogolaadaan sidaasaan abi kula heshiiyay buu yiri laakiin Xasan Sheekh ayaa baabiyay qorshahaygii imikana wataafa katay Somaliland calaacal iyo tolaay ayuu markaas ninkii halkan la soo fadhiistay waxaan hayaa muuqaal afkiisa uu ka cadeynayo jabka iyo fajida uu Somaliland u qorsheeyay ee ay ka badbaaday qodobada iyo qodobo kale ayaan daaha ka rogayaa ku soo dhawaada barnaamijka waqtigan ay jiraan khilaafyo siyaasadeed oo gudaha Somaliland ka jira yaxsarado waaweyn oo dunida ka taagan oo saameyn xun ku leh waayaha nolosha ku leh waxa ay ahayd inaan mashruucan oo kale lagu dhex tuurin oo qaab habaysan oo waqti qorshaysan iyo farshaxan diblomaasiyadeed lagu galabayay oo dowladda saaxiibkan hayna waa inuu qaab noocaas ku galo markaa maadaama madaxweyne Muuse shir la qaatay madaxweynaha Djibouti iyo madaxweyne Soomaaliya oo maalin ka hor uu dhoofay waa sabab dhoofay waxay idin kulanka ay ka soo baxaan isfahan ku wajahan mashruucan oo buuqa iyo cadaawadda laga dheeraado intii suurtagala isla markaana la qorsheeyo iskaashan booliisi iyo wax wada qabsi iyo xiriir wanaagsan oo gobolkan dhex mara saddexdan wadan markii hore wada joogay Itoobiya iyo inta kale ee geeska regional integration geeska la sameeyo ayay fiicnaan waxa fiiro gaar ah oo baahnaa shakiga sii korinayo nugu sii korinayo bulshada ku korinaya waxaa hore u jiray waa hagaag muuqaalka aad daawateen waa gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Xaaji waxa uu markaasi hadda miciin biday in uu yiraahdo madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu ay ahayd buu ku leeyahay sida aad ku arkayseen muuqaalka inuu ka fasax qaato madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Gelle oo la kulmayay oo uu yiraahdo waxaan doonayaa inaan abi dekad ama moogtay bad qayb kamid ah ka kireeyo oo aqoonsi kaga bedesho ee fasaxade oo moogtay ama sideed u aragtaan haddaba dad nacabkaaga ah oo aad ishaysaan oo markaasi sidii aad u kala goran lahaydeen aad ka wada hadlaysaan miyaad sirtaada u bandhigi lahayd oran lahayd sidan iyo sidan baan yeelayaa igala taliya soo haddana faji kale lagu aasi maayo si aad markaasi ilmaha yaree 12 jirka baa garanaya Xirsi maanta wuxuu inooga dhigayaa talo haddii markaasi dee si waaqici ah oo dhinacna wallahi taageerin si waaqici haddii loo eego waxaan ugu xilmayro 12 jir ah xitaa uu fahmaya weeyaan oo ciyaalka yar baaba sir kala yeesha moogti wuxuu ku leeyahay waxa idin Xasan Sheekh Maxamuud sheegay yiraahdo abi baan doonayaa inaan dekad ka kireeyo bal sideed u aragtaan sideed u aragtaa waxa iska daabu koronaya iyo aqoonsiga kaga bedelanaysa de waxaas ma dhacayaan joog ama inta lagu raado hayba marka la oran doono abi waxa wadi joojiyo talaabooyin kale qaadi lahaayeen talabaad meesha sir baa taalay barnaamijkii hore wani kaga hadlayay kaasi oo wal iskaartaynayay heshiisiyada markaas laga saxeexay Xasan Sheekh Maxamuud baa jiray kaasoo markaa ay kamid ahayd in Somaliland wadamada caalamka oo dhan markaasi heshiis la gali karto la shaqaysan karto badaheeda ay markaas u madax banaantay inay kirayso sida oo kale marka aan u daba fadhiisanaynin Soomaaliya oo sidii markii horeba ay ahayd dal madax banaan oo ku biiray imikana si marka dal madax banaan oo kale
ay marka heshiisyo ula geli karto wadamada caalamka marka waa la iskaarteynaya meesha wadii adna aadan ku oran ku lahayd markaas xasan sheekh si uu saxeexo annaga midowgiyo hawsha ku dhamayn doonay bal horta annaga faylkan noo saxeex aanu caalamka la sii shaqaysanay marka in caalamka iskala sii yara shaqaystaan iyo hawlaas waa loo fududeynay laakiin haddaad tiraahdeed warka shayca ka qaadida tiraahdeed waan tagayaa aqoonsi baan bedelanaya miyuu ka yeelaya xasan sheekh waayi ta kale haddii markaas aad ku tiraahdeed Ismaaciil Cumar Geel ku tiraahdeed abiy baan markaas dekada ka kareynaya dee waxa weeye isagna la ganacsigiisa istaagayo meesha danayaal iskhilaafsan baa jiray waxa si isna wuxuu bilaabaya marka inuu ka hor yimaado ama inuu ku dhoola cadeeyo hay ku raado faci ku aaso marka xirsi wuxuu sidaas u gudoomiye xisbina marka hadee ku yahay waan bareerayaa siyaasadiisu waxay sheegaysaa ku leeyahay horta ragga la tashado dee marka idinkuna sidaad u aragtaan bal comment-ka noogu reeba ku sii dheeraan maayo dawanin iyo garaadkii oo moogtahay dee isagu saas u gartay laakiinse madaxweyne muuse bixi tallaabadan uu qaaday waa tallaabo heer caalamiya oo diblomaasiyadda weji cusub u yeeshay ilaa iyo gaaladii baa ka yaabtay habku markaas iminka BBC falanqeynaysa qaybta ingiriishka oo markaas dhacdooyinkii sanadkii la soo dhaafay 2023 ugu waaweynaa ay ku soo dareenba markaas kaartada ugu degay muuse bixi labada nin bixi doonayeen in Soomaaliya isku jiraan Ismaaciil Cumar Geel wuxuu doonayay in Soomaaliya iyo hawlahaas moogta la isku bahaysto in la kala tagin xitaa waa kan la xididay inantiisii siiyay bade markaa nimanka reer Muqdisho sababtu la xididay waxa weeyaan la kala bixin ayuu doonayay dee markaa 12 sano inaguna aqoonsi raadinayni markaa la sii hoos fadhiyo wax macquul ma aha moogta waagaag dhinaca kale waxa jirta huwantii iyo moogta huwan kalkaalkii kooxii ictisaabtii shabaabtii daacish kulli waxaan ku argagax ayaa hadda markaa haysta waliba waxay caawaaye qacdi ugu dambeysayna ay ka yeedhay markii la soo bandhigay muuqaal taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeyagaas Nuux Taani iyo markaa taliyaha ciidanka Itoobiya Field Marshal Berhanu Jula oo markaas Nuux Taani oo si heer sare loogu soo dhaweeyay taliskii guud ee markaas ciidamada Itoobiya iyo xaruntoodii militariga deetana la kala tusay dhammaan agabka iyo qalabka dagaalka Itoobiya diyaaradihii kala nooc la kala saxday heshiisiyo markaas ay ku jirto in labada dal si wada jira ay markaas danaha difaac u wada fuliyaan oo markaa cadow kasta oo midka kale uu leeyahay ka kale ka difaaco oo gacmaha isqabsadaan sida oo kale waxa ay leeyihiin markaa huwantii laftarkooda warbaahintooda ay markaa isla dhex marayaan in heshiiska ku jirto kooxaha hadda jooga markaa Sool iyo Buuhoodle in cagta la mariyo oo si wada jira duulaan u soo qaadaan markaa Soomaaliland Itoobiya oo warwar weyn baan markii ku furan marka dadka falanqeeya siyaasadda laftarkooda waxay leeyihiin huwanta warwarka ku furan ayuu marka xirsina ka mid yahay ay qaar ku xurayaan moogtahay oo leeyihiin xirsi laftarkiisa hoosta laga xariiqa ay tahay warwarkan haya maxay tahay ila sida aqoonsimo jiradaas haya wuu jiraayo xasan sheekh maxamuud ba gacantiisa ku saxay waana sababta loo qaylinaya xasan laakiin isagu waxa uu ka warwar qabaaba la leeyahay duulaanka soo wadaan waayo waxa uu kooxaha ictisaam iyo moogtay asxaabtiisii kamid Cabdirasaaq Khaliif iyo kooxahan ka dagaalamaya laascaanada huwantaahi waxa hadda noqotay saldhigii ay ka soo duuli jireen ee Itoobiya dabada kula jireen ayaa hadda Soomaaliland ay la wareegtay marka in cagta la marinayo ogyihiin marka de habar shacladii yaani ay ku soo duulayeen deegaanadooda ay gubayeen Boqortooyada iyo deegaanadaas ay ka gubeen ee habar shacladda salaadiintoodii ay kala qaybiyeen oo ay awood ay isku difaacaan u diideen ay markaas tan Itoobiya markaas ayaa kaga daran oo meel ay ka qabtaan iyo suldaan ay kiciyaan iyo moogtahay cid ay kala dhex galaan iyo lacag cid qaadanaysa midna ma jirto marka waxa weeyaan caleeha inay u dhamaatay bay huwantii ogtahay sababta darteed bu xirsina la qaylinaya ayaa la yiri waagaag dhinaca kale dhinkii farmaajo ayaan idin hayaa oo markaas qorshaha uu Abiy ula saaxiibay ee Eritrea ula saaxiibay afkiisa ka cadeynaya in ay ahayd in Soomaaliland afarta jihaba ka soo xiro oo caburiyo oo markay qalasho ay yaabto si ay isku dhiibaan bal muuqaalka soo socda ayaan isagoo afkiisa ka hadlayo cadeynaya istaraatiijiyada Soomaaliland kula dagaalamay ayaan idin soo gudbinayaa ma aqaan intaan halkan fadhida inta beerleyda ma aqaan لكن وحير ينبرح كقنا وحير ينكقنا بيرح بيرتا
biyaha waxa loogu sidayaa kanaalka marka kanaalka haddii uu soo fataho biyaha beertu waa baaba'aysaa haddii biyuhu dhan soo fatahmaan marka waxaa la rabaa si beerta aysan u dhibaatoon in kanaalka laga xiro biyaha haddaad tiraahdo marka kanaalku ha socdo biyaha waxaa ka dhuraya beerta weliga allah waa dhuraysaa beerta biyaha ka dhuraysaa marka waa inaa horta kanaalka xirto kabacdina biyaha ka dhurto ama uu qalalo marka Soomaaliya nabadeeda waa inaa ka soo xirto meeshii burburku ka soo bilowday dad badan isweydiinaya war maxay Itoobiya loo leeyahay waa kanaalkii marka wuu faraxsanaa ka qoslaya fajadu dhigayay moot ayuu inoo faahfaahinayaa haddana calaacal farta ayuu dhexda ka qaniisan yahay dhammaan fajiyadii uu mogta Soomaaliland kula dagaalamayay ninkaasi inta uu halka Muqdisho fadhiyo habeen iyo maalinba wuxuu dadaal ugu jiray inuu markaasi reer Soomaaliland baabiyo oo cagta mariyo geed gaanbo fuuq qorshayaashiisii oo dhan ka kacbay noqdeen ninkii Abiy markaasi islaha ku garaac Itoobiya Soomaaliland waxa ay saaxiibeen waxaan hadda la sheegayaa farmaajo inuu isdaldalooyin yar u jiraa wax badan buu soo qorqoraa hadda meelahaasi oo uu yiraahdo waan ka soo horjeedaa laakiinse hadda juuqdiiba afka gabay markuu arkay taliyayaasha labada wadan oo hadda markaasi heshiisyadii military hirgelinaya iyo difaaca markaasi iskarab istaageen marka farmaajo way u dhamaatay waxa la yiri inuu wadnu istaago iyo markaasi sidoo noqon doonaba waxaan leenahay Allah kuugu wado barnaamijkaas ugu dhayn nabadgeliyo